sidaa la socotaan wili bandowga magaalada wax ka hirgala ma jirto dadkii wili sidooda u dhow yihiin bajaajleeg waa ka madax adeeg mid kamid ah asxaabta bandowga ka waran niyo bandowga horta waa fiicantaha awaarmirta dawladda in loo hoggaansamo laakiin dhibka jiro Soomaalida waxa waa yani balantooda waa iska borlabo mataqaanaa waa waxay jecel yihiin inay ka dhigtaan maxaan ku dhahaa gadaal u dhigtaan ama dileyd sameeyaan waxaa loogu talagalay meeshaan TV-ga waa laga sheegay raadi waa laga sheegay maxaan ku dhahdaa in 8 o'clock ay ku eg tahay maalinta Arbacada in dhaqdhaqaaqa magaalada la fiyo oo yani si looga hortago cudurkan la yiraahdo coronavirus sax dawladda marka awaamir ay soo bixisay waa la fasaxay wili xilligan la joogo magaalada waa la fasaxay wili waa socdaa maxaa dhacay marka hadda waa kana amarkii dawladdu waa la jabiyey waxaan ugu wacan gaadiidka dawladda ayaa u horseeday mid ka mid ah gaadiidka dawladda ayaa hor boodaayo in la jabiyo amarka sawa shacabka waxaa ku filanaysaa marka hadiiba maxaan ku dhahaa dawladdii waa kaas gaarigaas waa gaadiidka ciidanka ayaa socday furay ciidanka ayaa bilaabay marka shacabku waxay xaq u leeyihiin marka inay maxaan ku dhahaa ay socdaan ayaga marka waxaa la yidhi marka waa 8 xilligan if you treat like an animal they behave like animal dadka sida loo dhaqmaa waa si yani aan fiicnayn waxaana waxaas ugu wacan waa dawladdii amar soo saartay waxa jibinana waa dawladdii sax waa ujeedaa weli 8 waa dhaaftay laakiin dadkiina waa la fasaxay ay maxaa leedahay magaalada marka maxaa isbedelay والله كله طريق كان الكينات اللي كان كل هذا عمود أنا waxaan aaminsanahay dadka shacabka waxay u hoggaansamaan awaamirta dawladda waa jecel yihiin inay maxaan ku dhahaa ay tixgeliyaan laakiin dhibka jiro dawladdii haddii ayada amarkii ay soo saartay ay tixgelinayso shacabka way daryeel lahaayeen taas laakiin waxaan u jeednaa hadda shacabkii ayagoo jecel inay u hoggaansamaan haddana waxaa garab socdo shacabkii dawladda qaar u shaqeeyo ayaa waxay rabaan ayagana meelihii ay socdaan inay gaaraan waxaa ka sugaysaa marka shacabkii haddii adiga aad jibisid amarka shacabkana wuu jibin amarka